السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بهذا كحران جنالك بقح ميديا ما أنت مقالك وحين كسو قادن دورنا روسكا الفنانة فرحية كبيرة يوسي جيد السعيد ديري روسكا وكدعي مقالة مينيابوليس دالك أمريكانكا ولي waxaa socdo dabaaldega iyo hambaliyada arooska ama aan iraahday meherka alfanaanada farxiyo kobayare oo soo bandhigtay siyigeeda cusub ee nolosha la wadaagi doonto. haddaba daawade waxaa idin haynaa xilliga uu dhici doono arooska farxiyo kobayare iyo siyigeeda Saciid Dheere iyo waliba sawiro iyo muuqaalo dheeri ah farxiyo kobayare oo soo bandhigtay. haddaba daawade haddii ay tahay markii kugu horeysay janaalka bagax meediye aad soo booqato fadlan taabo calaamada gaduudan ee subscribe-ka si aad ula socoto xogag wareedka aan halkan idinkugu soo gudbino iyo dhacdooyinka caalamka. farxiyo kobayare oo sheegtay waqtiga uu dhici doono arooska oo aan laga kala hari doonin. magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo Soomaalidu ku badan tahay ayaa laga dareemayaa qabanqaabada arooska alfanaan farxiyo kobayare halka oo lagu qabanqaabinayo si loogu dhigo aroos qaran oo weyn. siyigeeda Saciid Dheere iyo aroosada alfanaan farxiyo kobayare oo halka uu ka dhici doono arooskooda ayadoo sheegtay fanaanada farxiyo kobayare in uu dhici doono arooskeeda bacdalsoon si weyn oo loo qabanqaabinayo arooska ayaa ah mid aad loo xiiseyn doono halka oo isugu imaan doonto fanaaniin dhowr ah oo halka ay ka qaadi doonaan heeso ay ugu talagaleen aroosada ama arooska الفنانة فرحية كبيرة يسيجيد سعيد ديري فنانينتا oo balan qaaday in aroos ka mid waliba uu ka qaadi doono hees uu gaar ah ama hees cusub oo halka uu tala galay in uu arooska ka qaado. fanaanka caanka ah ee dalmaryare ayaa la sheegayaa in uu sugi yahay ama la sheegayo waqtiga arooska in uu ku dheeraaday si uu halka uga soo qaado heeso cusub oo aroosada uu tala galay. الفنانة فرحية كبيرة يسيجيد سعيد ديري oo halkaasi ku aqal gali doono hadduu eebe idmo.